Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran channelka Samna Kasta Official. Fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysay channelka soo booqato, subscribe noo saar, gambaleelkana furo si markasta ay kuu soo gaaraan warbixinada xiisaha badan ee halkan aan kusoo gudbino. Saaxiib waa ku mahadsan tahay haddii aad hore noola joogtay channelka. Waxaan ka codsanaynaa muuqaalka inaad like garayso, sidoo kalena sii share garayso si uu u gaaro saaxiibo badan. Waadna ku mahadsan tahay. Asxaabta barnaamijkeena fanka iyo caalamka maxaa ka cusub waxaan kusoo qaadanaynaa filmaan dhowr ah oo soo bixi doona sanadka 2022 dhammaadkiisa iyo bishan June gudaheeda. Aflaantaas waxaa ugu horeeya filimka lagu magacaabo Jugjug Jeeyo. Filimkan waxaa hogaamiye ka ninka lagu magacaabo Faarun Dhawaan, halka uu ku weeliyo xiddiga caanka ah ee Anil Kapoor. Sidoo kale filimkan waxaa ku jira gabadha lagu magacaabo Kiara Advani. Sidoo kale waxaa ku jira rugcadda maamada caanka ah ee laga yaqaan Hindiya ee lagu magacaabo Neetu Soon oo filimkan door weyn ka qaadanaysa, iyo xiddiga Anil Kapoor ayaa filimkan door weyn ka qaadanaya, halka Faarun Dhawaan iyo Kiara Advani ay yihiin hogaamiyaasha filimka. Filimkan 24 saac ka hor ayaa waxaa laga soo bandhigay goos xiiso badan. Filimkan waxaa iskugu jira shactiro iyo arrimaha qoyska. Sidoo kale filimkan waa filim kusoo laabanaya Faarun Dhawaan. Faarun Dhawaan saa ognahay in dhaweyd tiyaatarada wax filim looma saarin, inta badan filmaantiisa waxaa lagu soo fasaxayay OTT-ga. Filimkiisii ugu dambeeyay wuxuu ahaa filimkii Kuulii Number One oo la daawaday sanadkii 2021. Sidoo kale filimkan waa filim aad u xiiso badan oo kusoo laabanaya Faarun Dhawaan. Aktarkan inta badan waxaa lagu yaqaanaa inuu sameeyo fariimaha shactirada ama comedy-ga. Sidoo kale filimkan waa filim si weyn loo sugayo. Sidoo kale filimkan waxaa lagu dhawaaqay in la daawan doono 24 June 2022. waa hal bil ka bacdi ayaa filimkan la daawan doonaa, waxaana la saari doonaa tiyaatarada. Balse filimkan waxaa laga yaabaa in dadka iska diidaan maadaama filimkan iskugu jiro shactiro iyo fariimaan. Sidoo kale filimkan waxaa laga yaabaa in garab weyn siiyaan dadka qoysaska iyo dadka xiiseeya fariimaha shactirada, maadaama filimka uusan ku jirin wax action ah. Inta badan filimkan wax action ma leh. Faarun Dhawaan iyo Kiara Advani ayaa hogaamiyaalka, halka gabadha xiddigta lagu magacaabo Neetu Soon iyo Anil Kapoor filimkan door weyn ka qaateen, ayna garab siinayaan ninka lagu magacaabo Faarun Dhawaan iyo xiddigtiisa Kiara Advani. Kiara Advani waqti fiican ayay ku jiraan maadaama filimkeena Fulfulaya 2 oo tiyaatarada saaran yahay, waxtarana uu ka dhigay muddo 4 maalin 3 maalin filimkan uu ku noqday hit dhammaystiran. Sidoo kale filimkan waa filim ay kusoo laabanayso Kiara Advani. Hadda gabadhan waxay noqotay xiddig saldhigatay Bollywood-ka, waxayna ka mid tahay xiddigaha loogu jecel yahay dhammaan intii caalamka. Xiddigtan waa xiddigaha ugu caansan ee Hindiya, maadaama koonfur Hindiya iyo waqooyi Hindiya xiddigadan ay la shaqeyso. Saxaabta filimkan waxaa daawan doona June 24, 2022. Saxaabta filimkan waxay kasoo kordhay waan la soo socodsiin doonaa. Waxaa nagala socon kartaan Telegramka iyo Fanbro Entertainment iyo sidoo kale YouTube-keena. Sidoo kale mashruuca kale aan soo qaadanayna waxaa lagu magacaabaa Tulsidas Junior. Filimkan waxaa hogaamiye ka ninka lagu magacaabo Sanjay Dutt oo fanka dib ugu soo laabtay, maadaama filimkan hogaamiye ka yahay. In dhawaad xiddigan saaxada laguma arag, badanaa filmaanta wuxuu ka qaadanayay doorarka laadrinta. Filimkiisii ugu dambeeyay waxaa KGF Chapter 2 oo ka qaatay door xumaana ama laadara. Hadda filimkan waa hogaamiye ka ninka lagu magacaabo Sanjay Dutt. Filimkan waxa uu ka mid yahay filmadii la daawaday bishii March 4, 2022, balse hadda waxaa lagu dhawaaqay xilliga OTT-ga lagu soo fasaxayo. Filimkan waxaa iska leh shirkadda lagu magacaabo T-Series. Filimkan waxaa ku dhawaaqday xilliga rasmiga ah la daawan doono OTT-ga, waxaa lagu soo fasaxay shalay galabkii hore. Sidoo kale filimkan waxaa laga yaabaa 24 saac lagu soo aadan in lagu soo fasaxo lagu soo fasiro afkeena Soomaaliga. Sidoo kale shabakadaha kala duwan sida Fanbro Production iyo Astaan Films. Sidoo kale filimkan waa filim kusoo laabanaya muddo dheer kadib ninka lagu magacaabo Sanjay Dutt uu qaadanayo doorka hogaaminta. Sidoo kale aktarkan waa loo xiisay maadaama aktarada uu ka mid yahay aktarada dhifinaadka ee jilay door walba oo loo soo bandhigo. Aktarkan waa aktarada loogu jecel yahay Hindiya, kaasoo Hindida inta badan lagu magacaabaan Baba of Bollywood. Filimkan waa filim aad u xiiso badan. Aktarkan aad ayaa loogu xiisay maadaama in dhaweyd uusan qaadan doorka hogaaminta. Filimkan shalay ayaa waxaa lagu soo fasaxay OTT-ga. Waxaa laga yaabaa in aan ku daawano af Soomaali maalmahan foodo nagu soo haysa. Saxaabta filimkan haddii loo soo turjumo waxaa soo dhigi doonaa groupka Telegramka ku leenahay Fanbro Entertainment. Saxaabta haddii wax ka soo kordhaan filimkan waa la soo socodsiin doonaa. Haddii markaas shabakadaha aflaanta fasira ay soo fasiri waayaan, saxaabta waa la soo socodsiin doonaa. Marka halkaas nagala socda wixii ka soo kordhana waa inoo soo gudbin doonaa. Sidoo kale filimkan waa filim la ciyaarayo ciyaaro badan oo inta badan ciyaaraha laga ciyaaro meelaha park oo kale ciyaaraha laga ciyaaro, kaasoo ah ciyaaraha champion inta badan la qabto, kaasoo markaas lagu guuleysanayo lacag.
halka Sanjay Dutt uu qaadanayo door cajaa'ib badan maadaama filimka laga soo bandhigay goos heer sare ah. Sidoo kale filimkan waxaa lagu soo fasaxay barta loo yaqaan Netflix. Asxaabta mashruuca kale aan soo qaadanayna waxaa lagu magacaabaa Ramsey 2. Filimkan waxaa hogaamiyey ninka lagu magacaabo superstar Akshay Kumar. Actor-ka waxa uu noqday actor-ka ugu saameynta badan Bollywood-ka maadaama actor-kan la wada ogyahay inuu yahay actor-ka ugu shacbiyadda ballaaran uguna shaqada badan marka la fiiriyo dhanka aflaamta soo saaridooda. Waana actor-ka keliya ee halkii sano sameeya 5 filim ama 4 filim. Hadda sanadka 2022 waxaa soo baxay filimka lagu magacaabo Bachchan Bandey iyo filimka hadda uu soo wado Peripheral soo baxay 3 June iyo filimka la daawan August oo lagu magacaabo Ramsey 2 oo hadda ka hadlayno iyo sidoo kale filimka lagu magacaabo Raksha Bandhan oo soo bixi doona December. Sanadkan kaliya ayaa waxaa soo bixi doona 4 filim. Sanadka dambena waxaa soo bixi doona 5 filim sida uu qorsho ugu jira ninka lagu magacaabo Akshay Kumar. Sidoo kale filimkan Ramsey 2 actor-kan waxaa kula wehelisa gabadha lagu magacaabo Jacqueline Fernandez oo hore loo sameeyay filimka lagu magacaabo Bachchan Bandey. Sidoo kale waxaa ku jira xigta lagu magacaabo Nusrat Baruja oo filimkan door weyn ka qaadatay. Sidoo kale filimkan weli lama shaacin xilliga sida rasmi ah loo daawanayo, balse filimkan ku dhawaaqistiisa waxaa la shaaciyay in markaas lagu daawanayo in la daawan doono Agosto, balse xilliga Agosto rasmi ah laga daawan doono maalmaha xilliga Agosto laga daawan doono filimkan lama shaacinin. Asxaabta filimkan waa filim aad u xiiso badan. Sidoo kale ninka lagu magacaabo Akshay Kumar wajigiisa ku bedeshay maadaama filimkan uu ku jilayo waji kale aan wajigiisa ahayn. Qaab ahaanna filimkan waa isbedelay ninka lagu magacaabo Akshay Kumar. Sidoo kale filimkan shaqadiisa waa socotaa maadaama shaqadiisa wax yariis ayaa ka harsatan. Sidoo kale shaqadiisa waxaa laga yaabaa maalmahan bishan February ugu soo haysa in uu dhammaystiro ninka lagu magacaabo Akshay Kumar. Akshay Kumar waxaa soo socda filmaan aad u xiiso badan aadna loo wada sugayo. Actor-kan waa actor-ka ugu firfircoonida badan marka la joogo Bollywood-ka, kaasoo sameyn kara filim walba oo loo soo bandhigo isagoo aanan ka labalabeynin ayuu filim kasta sameyn karaa isagoo markaas aan ka fikirin filmaanta inay guuleysanayaan iyo guuldareysanayaan. Sidoo kale filimkan waxaa lagu soo fasaxayaa tiyaatarada bisha Agosto 2022. weli lama shaacin xilliga rasmiga ah Agosto la daawan doono. Asxaabta wixii kasoo kordha waan la soo socodsiin doonaa halkan nagala socdayo barta Telegram-ka. Asxaabta mashruuca kale aan soo qaadanayna waxaa lagu magacaabaa Vikram Vedha. Filimkan waxaa hogaamiyey ninka lagu magacaabo Hrithik Roshan. Sidoo kale waxaa ku weheliyay ninka lagu magacaabo Saif Ali Khan oo filimkan doorar weyn ka qaadanaya. Sidoo kale filimkan waa filimkii Vikram Vedha ee Tamilka ah oo sameynayay Vijay Sethupathi oo dib loo sameynayo waxaan sameynaya Saif Ali Khan iyo Hrithik Roshan. Filimkan waa filim hore loo sameeyay haddana waxaa la sameynayo isagoo Bollywood ah. Filimkan waa filim aad u xiiso badan. Shaqadiisana waxay ka socotaa dhankaas iyo Hindiya. Shaqadiisa ugu badnaan waa la soo gabagabeeyay. Filimkan waxaa dhiman xilliga lagu dhawaaqi lahaa in la daawan doono. Sidoo kale filimkan waxaa lagu dhawaaqay in la daawan doono September 2022. Asxaabta filimkan waa filim kusoo noqonaya Saif Ali Khan iyo Hrithik Roshan. Hrithik Roshan filimkiisa ugu dambeeyay wuxuu ahaa War oo la daawaday sanadii 2019 iyo filimkiisa Super Teddy oo la daawaday sanadii 2019. Actor-kana filim walba uu kusoo laabanayo waa filim guul weyn gaara maadaama uu fasaxada ka maqan yahay muddo 3 sano ah. Filimkan waa filim aad u xiiso badan la sugayo. Sidoo kale Saif Ali Khan filimkiisa ugu dambeeyay wuxuu ahaa Banti or Babli oo noqday flop ama disaster isagoo tiyaatarada la saaray 2021 kaasoo disaster weyn noqday filimkaas. Asxaabta filimkan Hrithik Roshan wuxuu ku matalayaa nin burcada halka Saif Ali Khan uu ku matalaya nin askari ah. Waa filimkii hore u daawanay Vikram Vedha oo ahaa Tamilka, balse hadda filimkan sheekadiisa waa la balaariyay iyadoo filimkan laga daawanayo Hindiya iyo daafaha caalamkaba. Balse filimkaas filim heer goboleed ayaa balse hadda filimkan sheekadiisa waa la balaariyay meelaha laga daawanayo aad ayay u badan yihiin maadaama filimkan Hrithik Roshan uu kusoo laabanayo. Waana actor-kan in badan saaxada ka maqnaa taageerayaashiisana waana u xiseen. Asxaabta filimkan bilaha July ama August ayaa waxaa laga soo bandhigi doonaa goos. Sidoo kale filimkan director-kii hore u sameeyay Vikram Vedha ee Tamilka ah ayaa dib u sameynaya filimkan isagoo Bollywood ah. Waana markii ugu horeysay uu sameynayo filim Bollywood ah. Taasna waxay u tahay ninka lagu magacaabo director-kan inuu noqon doono filim sameeye laga yaqaan Bollywood-ka maadaama Bollywood-ka uu kusoo galay filim aad u xiiso badan. Asxaabta filimkan wixii kasoo kordha waan la soo siin doonaa. September 2022 ayaa filimkan la daawan doonaa. Sidoo kale Elector waxaa u socda filimka lagu magacaabo Fighter oo la daawan doono sanadka 2023 ayna ku wehelisay gabadha lagu magacaabo Deepika Padukone. Sidoo kale filim kale aan soo qaadanayna waxaa lagu magacaabaa Ayalan. Waxaa hogaamiyey ninka lagu magacaabo Siva Karthikeyan oo hore u sameeyay filmadii kale ah Doctor iyo filimka hadda maslaxa u saaran lagu magacaabo Don. Actor-kana waqti xiiso badan ayuu ku jiraa maadaama labadiisa filim ay u noqdeen blockbuster waaweyn.
Haddii aan soo qaadano filimkii Doctor oo daawaday sanadii 2021, waxa uu noqday taariikhan filimka lacagaha ugu badan ka soo xareeyay gobolkaasi Tamil. Haddii aan soo qaadano filimkiisii ugu dambeeyay Don, muddo 4 maalmood ayaa wuxuu ku soo xareeyay lacag ku dhow 50 karoor, taasoo filimkan ka dhigtay muddo 4 maalin inuu ku noqdo hit dhammaystiran. Haddana waxaa la sugayaa macaash fara badan inay ka helaan qolyaha cajaladaha ka qeybiya qolyaha aflaamta iskale filimkan, maadaama filimkan lacagihiisa ugu badan oo soo xareeyay aadna loo filayo inuu gaaro darajada blockbuster. Asxaabta, filimkan waa filim aad u xiiso badan, halka ninka lagu magacaabo Sifa Karthikeyan uu ku matalay laba door oo kala duwan. Hore ayaa uga soo hadalnay filimkan, muuqaalada hore ayaa ka soo halkaa kala daalac. Haddii aan soo qaadano filimkan Island, waa filim science fiction khiyaali ah, kaas oo kusoo laabanaya ninka lagu magacaabo Sifa Karthikeyan. Filimkan waxaa la sameeyay muddo 3 sano ka hor ayaa filimkan la sameeyay, balse waxa uu baaqday saameyntii coronavirus, maadaama filimkan la daawan lahaa sanadii 2020 oo hore loo sameeyay. Filimkan 2019 ayaa qorshihiisa la bilaabay in la duubo, balse waa la soo gabagabay. Filimkan sheekadiisa waa diyaarsan tahay, shaqadiisana waa dhammaystiran tahay, balse waxaa ka dhiman xilliga tiyaatarada la saari lahaa. Asxaabta, filimkan waa filim kusoo laabanaya ninka lagu magacaabo Sifa Karthikeyan, maadaama uu noqday xiddiga ugu firfircoon dhankaasi Tamil, maadaama filimadiisa ugu dambeeyay ay noqonayaan blockbuster. Haddii aan kasoo bilaabno sanadii 2019 filimkiisa Hero oo noqday super hit, sidoo kale Doctor iyo sidoo kale Don. Actor-kan waxaa ku jira waqti xiiso badan maadaama uu la tartamayo superstarada ugu waaweyn fanka Tamilka. Haddii aan soo qaadano Vijay iyo ninka Thalapathy Vijay iyo Ajit Kumar iyo Rajinikanth ayaa saddexda ugu awooda badan marka la joogo dhankaas iyo Tamil. Actor-kan wuxuu ku rajeynayaa si uu gaari lahaa darajadaas ay gaareen saddexdaas nin, waxaana laga yaabaa inuu gaaro sanadada soo socda, maadaama uu noqon doono xilli aad u weyn, filimadiisana heer sare u gadmayaan, maadaama actor-kan filimadiisa ay gaarayaan in ku dhow 100 karoor ay soo xareynayaan, maadaama tiyaatarada uu aad ugu shacbiyad ballaaran uu ka helay, filimadiisa ugu dambeeyana daawayaashu aad ugu heleen. Asxaabta, filimkan waxaa qorsheeya in la daawado dabayaaqada sanadka 2022 ama December 2022 ayaa wax lagu soo fasaxi doonaa tiyaatarada. Filimka ugu dambeeya aan soo qaadanayna waxaa lagu magacaabaa Cobra, waxaa hogaamiye ka ah ninka lagu magacaabo Jian Vikram. Sidoo kale waxaa ku wehelisa gabadha lagu magacaabo Srinidhi Shetty, hore loogu bartay labada qaybood ee KGF Chapter 1 iyo KGF 2, taasoo xiddigtan ay ku noqotay xiddig weyn. Haddana waxay soo wadaa mashaariic kala duwan oo ugu horeeya filimka lagu magacaabo Cobra oo la daawan doono Agosto 11, 2022. Filimkan dhowr jeer kala duwan ayuu baaqday, wuxuuna qorsheeyaa in la daawado 2020, balse ma aysan suuroobin maadaama coronavirus uu ku soo kordhay dunida. Maadaama coronavirus uu ognahay sanadkii 2020 inuu qabsaday dunida iyo daafaha caalamkaba. Sidoo kale filimkan wuxuu qorsheeyay inuu daawado 2021, balse uma aysan suurtagelin maadaama coronavirus uu kusoo laba kacleeyay markaas Hindiya. Sidoo kale filimka qorshe wuxuu yahay in la daawado 2022, gaar ahaan bisha Agosto 11 ayaa filimka la daawan doonaa. Hindiya ay u dabaaldegayaan maalinta xorriyadda Hindiya, Independence Day ay u dabaaldegayaan Hindiya ayaa filimka lagu soo beegay in la daawado. Shacabka Hindiya ay ku jiraan tamashaad si ay markaas waqtigooda farxadda ay ula qaybsadaan wadankooda, maadaama Independence Day qaateen Agosto 11, 1947 ayay qaateen. Sidoo kale filimkan waxaa xilliga loogu soo aadiyay maadaama shacabka inta badan ay fasax yihiin, si markaas waqtigooda ay ugu daawadaan aflaamta markaas tiyaatarada saaran. Sidoo kale filimka Agosto 11 filmo badan ayaa tiyaatarada la saari doonaa, waana bilaha ugu badan ee tiyaatarada filmaanta ugu badan la saaro. Actor-kan filimadiisa ugu dambeeyay waxaa lagu soo fasaxayay OTT-ga. Filimkiisa ugu dambeeyay wuxuu ahaa filimkii Mahan ay iskula jireen wiilkiisa Dhruv Vikram, kaasoo la daawaday 26 January 2022 aanu daawanay isagoo af Soomaaliya. Asxaabta, filimkan waxaa tiyaatarada lagu soo fasaxayaa sida horeynu kuugu sheegnay 11 Agosto 2022. Wixii kasoo kordhan waa la soo xasuusin doonaa iyo xilliga gooskiisa. Qaybta dambe ayaana ku soo dhigi doonaa isagoo markaas aad loo sameeyay filimkan. Sidoo kale ninka lagu magacaabo Dhruv Jian Vikram filimka wuxuu ku matalayaa 8 waji oo kala duwan. Sidoo kale filimkan filim aad u xiiso badan laga wada sugayo dhankaas Tamil iyo Hindi iyo idil iyo daafaha caalamkaba. Asxaabta, filimkan haddii aad ka heshay muuqaalka like saara, sidoo kalena waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.